الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee banaanbaxyada waddanka Iiraan ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii 16aad banaanbaxyadu ay sii socdaan mas'uuliyiinta waddanka Iiraanna waxay sheegeen in ka badan 100 ciidamada ammaanka lagu dilay banaanbaxyada madaxweynaha waddanka Iiraan ayaa isna goordhowta ka hadlay dibadbaxyaasha socda waxaana uu sheegay in kooxo qaswadayaal iyo argagixiso ay wadaan rabshado waddanka danihiisa ka soo horjeeda waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay amurahan iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka hadlay arrimahan sidoo kale waxaa la sheegayaa war haatan soo dhacan oo tilmaamaya in Netanyahu isugu yeeray kulan degdeg ah qaybaha ammaanka xilli laga cabsi qabo Mareykanku inuu duulaan ku qaado waddanka Iiraan dhankeeda warar culus ayaa ka soo baxaya dhanka Gaza ugu yaraan 3 Falastiiniin ah ayaa lagu dilay weerar hor leh oo Israa'iil ka geysatay marinka Gaza waxaan kaloo eegaynaa dalka Mareykanka ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay gobolka Mississippi toogashooyin safmar ah oo ka dhacay dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan wixii warah ee soo kordha iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa ayaa qadka ku jira maxamedan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn warbaahinta dawladda waddanka Iiraan ayaa sheegaya in xayn kamida xubnaha ciidamada ammaanka la dilay intii ay mudaaharaadyo socdeen looga soo horjeedo qalalaasaha dhaqaale ee xukuumadda lagu eedeynayo iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu digniin ku siinayo dowladda Mareykanka iyo Israa'iil in falcelin xoog leh ay Iiraan qaadi doonto haddii dowladda Mareykanka isku daydo in waddanka Iiraan ay weerarto wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa ku waramaysa in 109 ka tirsan xubnaha ciidamada ammaanka in mudaaharaadyada waddanka meelo kala duwan ka socda in lagu dilay hay'adda laanqeyrta cas ee waddanka Iiraan ayaa dhan kale sheegaysa mid kamid ah shaqaalahooda inuu dhintay kadib markii lagu weeraray dhismo ku yaala magaalada Gorgan ee gobolka Golestan warbaahinta rasmiga ee dawladda ayaa sidoo kale ku waramaysa in masaajid dab la suray ku yaala magaalada Mashhad ee bariga waddanka Iiraan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in dadka rabshadaha wada ay tiradooda aad hoos ugu sii dhacayso halka xiriiryaha guudna uu digniin ku bixiyay cidii lagu helo in ay rabshadaha qayb ka tahay in dil toogasho lagu xukumi doono madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa ku sheegay dadka rabshadaha wada iyo argixisada ay waajib tahay inaan loo ogolaan inay bulshada carqaladeeyaan wuxuuna ku eedeeyay dowladda Mareykanka iyo Israa'iil inay dab ku shidayaan kacdoonka ka socda waddanka Iiraan arrintaana waxay daba socotaa 3 habeen oo xiriira inay rabshado ka dhacayeen meelo kala duwan oo waddanka Iiraan kamid ah hadalada ka soo baxay warbaahinta rasmiga ee dowladda ayaa Pezeshkian waxa uu ka dalbay shacabka inay xukuumadooda aaminaan isla markaana ay raadiyaan sidii cadaalad lagu meel marin lahaa wuxuuna digniin ka bixiyay falalka laga yaabo inay waddanka xasiloon darre ka dhigaan ama geliyaan waxa uu sheegay dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa waxay rabaan in ay kala qaybiyaan mashaakilna ka abuuraan waddanka Iiraan gudihiisa ayagoo dhiirigelinaya mudaaharaad hadaladan ayaa waxay daba socdaan warbaahinta warar la siiyay Pezeshkian mar uu booqasho ku marayay magaalada New York isagoo ka hadlayay kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay Israa'iil iyo Iiraan in ay saaxiibo mar kale noqon karaan kadib markii xukuumadda waddanka Iiraan ay dhacdo waa sidoo hadalku dhigay waxaan fariin u diraynaa dadka geesiyaasha ee rabshadaha ka wada ee waddanka Iiraan marka xukuumadda dhacdo waxaan ka wada shaqayn doonaa waxyaabo dan u ah labada shacab waa sidoo hadalku dhigay waxaana soo xiganaysa warbaahinta waddanka Israa'iil warsii horeysay baarlamaanka Iiraan ninka afhayeenka ah ayaa ugu hanjabay cidii weerar ku soo qaada Israa'iil iyo Mareykanka ba ahaatee waddanka Iiraan in ay la kulmi doonaan cawaaqib aad u xun Israa'iil ayaa feejignaan gelisay dhammaan ciidamadeeda ammaanka iyadoo la filayo Mareykanka inuu faragelin ka sameeyo waddanka Iiraan sida wakaaladaha wararka reer galbeedka qaar kamid ay ku waramayaan 3 Falastiiniin ayaa Israa'iil ay dishay
kadib markii diyaaradaheeda ay duqeeyeen meelo kala duwan oo ku yaala goobo ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen marka Gaza ilo isbitaalka la yiraahdo The Baptist ayaa xaqiijiyay in qof Falastiini la dilay oo ciidanka Israa'iil ay xabada ku rideen asagoo mariyay deegaanka Artufaax ee bariga magaalada Gaza ilaha isbitaalka Nasred ayaa iyagana sheegay in laba Falastiiniyiin lagu dilay toogasho iyagoo mariyay deegaanada Israa'iil ee degan yihiin Bani Suhayla ee bariga Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed arrimaha Iiraan aynu ku bilowno waxbaa sanagleh baa leeyahay xiisad colaadeed baa laga cabsi qabaa gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan waxaynu ku sheegnay goor dhaweyta barnaamijkii baxay inuu wacad ku maray haddii la soo weeraro Iiraan saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe ku yaala iyo Israa'iil inay baabi'in doonaan oo duqeyn doonaan oo si toos ay target u yihiin ama yool u yihiin hadda intaynu barnaamijka ku jirnay waxaa la sheegayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil kulan degdeg ah inuu isugu yeeray saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee ammaanka arrimaha Iiraan ayaa laga hadlayaa baa leeyahay bal xaaladda nooga waran markan dagaal hadduu dhaco waxay noqonaysaa kala bax baa la leeyahay marka ugu horeysa waxyaabaha ka socda wadanka Iiraan wax cusub maaha Iiraan marar badan oo hore ayaa dhowr iyo 40 sannadood la soo dhaafay ee gacaankan Islaamiga intuu jiray laga soo bilaabo 1979kii ay dhowr goor mudaharaadyo iyo kacdoon dhaceen kacdoonkan ugu dambeeyay wuxuu kuwa kale uga duwan yahay waxa weeye waxa dhiiri gelinaya sida ay dawladda Iiraan hadal ku dhigayso Mareykanka iyo Israa'iil waxaana muuqata Mareykanka marka la fiiriyo xeerarkii caalamiga ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka la fiiriyo axdigii qaramada midoobay in wax la xiirinayo la tixgelinayo lama arko wixii ka dambeeyay markii xoog lagu soo afduubtay madaxweynihii wadanka Venezuela xeerarkii caalamku waxay noqdeen tusbax go'ay tan kale hanjabaadda ka soo yeeraysa Mareykanka iyo Israa'iil Iiraan ma yareynaysanayso mar ayaa la khiyaanay Soomaalida ayaa waxay yiraahdaan god sireed hadaad mar ku dhacdid waxa weeye adiga waxa weeye shil uu dhici karaa laakiin mar labaad hadaa ku dhacdid soo wax gartama waxa weeye adiga eed iskale Iiraan waxaad moodaa inay ka gaashamanayso in mar labaad si gaadma lagu weeraro waxay dhankeeda ka wadaa diyaar garow xoog badan waxaa sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in agab military uu kaga imaanayo dhanka Ruushka hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka iyo hogaamiyaha ruuxiga ay ka sii horeeyay Ali Khamenei kulligood waxay tilmaamayaan Iiraan inay ka go'an tahay markan in ay sharafteeda iyo nafteeda difaacdo Israa'iil hanjabaadda ay jeedinayso waxaa laga yaabaa in ay ku noqoto sida ay khabiirada qaar hadal ku dhigayaan in ay ku cayaarayso qori daba waxay u hanjabaysay inay weerarayso ururka Xisbullah waxay sidoo kale ku hanjabaysaa in dagaalka Mareykanka qasab ku noqoto oo Xamaas ay hubka xoog uga dhigto haddana ra'iisul wasaaraha shirkiisa gaarka uu leeyahay waxa uu dhiiri gelinayaa xukuumadda marka la rido xukuumadda nugul inay dhacdo halista ugu jirta sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan Iiraan maaha waxaa halis ku jira oo dagaalka 12 maalmood lagu ogaaday oo bariyo lagu joojiyay dagaalkaasi Israa'iil haddana waxa la qiyaasay oo dhan oo khabiirada arrimaha caalamka iyo siyaasadda juqraafiyeedka bariga dhexe la fagura oo dhan ay tilmaamayaan waxa weeye Israa'iil iyo Mareykanka haday dagaal bilaabaan dagaalkaasi ma noqon doono a walk in the park sida hadalka loo dhigay socod yar oo meel beer ku martay wuxuu noqon doonaa dagaal la isku riiqdo oo dhibaato xoog la keena tan kale sida hadalka loo dhigayo dagaalka haddii uu qaraaraado waxay u badan tahay Israa'iil inay nuclear isticmaasho ayaa ilaha qaar sheegayaan Mareykankuna uu indhaha ka qabsan doono dhowr goor ayuu Mareykanku hajabay waxaan hayaa oon ka hortaaganahay Israa'iil waxaa laga yaabaa iyo Mareykanka oo meelo gaara lagu arkay dhaqdhaqaaq military inuu socdo waxay tahaba waxa weeye fardal isugu joogo maxaa la isaga faanin bay Soomaalidu tiraahdaa waa gartay arinta nuclearka warar inkastoo rasmi aysan ahayn Iiraan mas'uuliyiinta laga maqal waxa la leeyahay iyada laftigeeda 24 saac bay ku sameyn kartaa nuclear laakiin haddii nuclear la isticmaalo soo markaa ma noqonayso gobolka bariga dhexe inuu isla ololo saliidan la yiraahdo
waa dhiiggii jirka oo bariga dhexe ka imaanaysay ma laga maarmayaa dad badan waxay leeyihiin sidoo kale arrintan Venezuela Mareykanku u weeraray waxay tahay shidaalkaas inuu helo haddii dhinacan bariga dhexe ay sila olosho xaaladdu marka ma ku filan tahay Mareykanka Venezuela midda kale wadamada Yurub oo xulafada la ah iyaga laftigooda shidaal la'aantu hayso oo shidaalka Ruushkana joojiyay iyaga xaggee bay ku tiirsanaan doonaan labadaas arrimood isku qaada maxamed su-aashaada dhinacyo badan ayay taabanaysaa midda Venezuela aan u dhaqaaqno Venezuela madaxweynaheeda markii la qaatay xukuumaddii weli sidiiba ay u taagan tahay waxaa muuqatay inay diyaar garoobayso qaadatana mowqifyo aad u adag Mareykanka laftirkiisa inay howlo badan ka socdaan oo ah in dowladda la weydiinayo maxay tahay tallaabada xigta oo Congress-ka ay weydiinayaan sidii uu moodayay arrinta way ka culus tahay oo waxaa heegan galay waddanka Venezuela madaxweyne ku meel gaar ayaa la magacaabay dowladdii oo dhan marka madaxweynaha laga reebo way shaqaynaysaa wararka soo baxayna waxa ay tilmaamayaan inayna sahal noqon doonin Mareykanku in uu si sahla saliidaas ku qaato haddana waxaa barasii dheereeyey in uu u hanjabayo waddanka Kuuba oo uu leeyahay wasiirkii arrimaha ama xoogayihii arrimaha dibadda waddanka Mareykanka oo asalkiisa Kuuba kasoo jeeda ayaa madaxweyne u noqonaya haddii heshiis ila geli waayaan Mareykanku marka xaaladiisa waa xaajo furan weeye taa iyadoo halkaa ay tahay ayaa arrinta nuclear-ka la xiriirta Mareykanku waxa uu rabaa in uu baqsado waddanka Shiinaha iyo waddanka Hindiya oo hadda sida wax muuqdaan aanan u hogaansamayn waxyaabaha iyo fariimaha uu gudbinayo Ruushka sidoo kale markab uu lahaa ayuu xoog ku fuulay hadda waxaad moodaa caalamka oo dhan Mareykanka inuu laf soo taagan ka yahay Israa'iil Mareykanka meel oga harto lama arko waa waddanka kaliya ee soo dhaweeyay madaxweynaha Venezuela in la xiro dagaalkan haddii uu dhaco ma noqon doono dagaaladii hore oo kale mid ah tan kale oo ayadan la isweydiiyey waxa weeye oo weliba dadka la fugura arrimaha ciidamada dhanka Mareykanka hore ayuu hub nuclear u isticmaalay markay timaado waddanka Japan oo laba atomic bomb ku dhuftay haddana wax uu rabi lahaa oo xaaladda dhaqaale iyo wax walba ku xun yihiin inuu mar kale istijaabiyo sida hadalka loo dhigayo oo isku dayo inuu wax baqsado Iran laftirkeeda ayaa waxaa la leeyahay barnaamijkeeda wuxuu ahaa mid nabadeed laakiin waxaa dhici kara in ay wax isbedelaan dhanka saliidda marka la yimaado bariga dhexe saliiddiisa hadday isku dhalaasho waddanka Venezuela waxa uu ka mid yahay waddanka ugu horeeya adduunka ee kaydka saliidda ugu badan haysta haddii Mareykanka uu helo saliiddaasi uma baahna saliidahan kale ee gobolka Venezuela ka socda shirkii uu la yeeshay shirkadaha waaweyn ee ka baac mushtari saliidda oo uu rabay inuu lacag ka ururiyo $100 bilyan gaaraysa kulligood waa ka gaabsadeen waxaana muuqata in arrinta Venezuela ayna farna ka qodnayn arrintan kalena ay liiqliiqanayso adduunku meel u socdo lama yaqaano laakiin kullu khabradu waxay leeyihiin Mareykanku waxa kamayn kara lama arko oo aan ahayn baariir xoogaaga hadduu xor yahay wuxuu ku geeyaan inuu laba xor yahay Mareykankii ayaa waxa uu ku xadgudbay sida ay khabrada hadal ku dhigayaan waddan leh gandaclo aan la iska celin karaynin oo guuxa ka dheereeya oo xataa madaxyo nuclear lagu xigar karo Ruushka ayaa laga wadaa ayuu maraakiibtiisi xoog ku qabsaday waxaana muuqata xaaladda la saadaalinayo inay noqonayso adduunka in uu cagaha geliyo dagaalka saddexaad ee adduunka waa gartay arrinta maxamed Yurub markaas aan eegnayo xulfay ahaayeen Mareykanka marka iyaga laftigoodu raalli ma ka noqonayaan inay ku dhacaan Yurub waxay ka caroodeen arrinta la xiriirta jasiiradda Greenland oo ah waddanka xiriir kala leh Denmark Yurubna ka tirsan NATO ku jira in uu Mareykanku uga hanjabo mar walba waa qaadan doonaa oo cid iska ka caabin karta ma jirtee in laga xaalaamay ku fiican tahay Yurub arrintaasi ma ogola dadka isbarbardhiga awoodaha ayaa waxay leeyihiin Mareykanka 2 milyan oo ciidan ayuu leeyahay qaarkeeda iyo qaar rigli ah Yurubna sidoo kale ciidamo ayay leedahay ma laga yaabaa wadamadan xulufada ahaa ee awal isla socon jiray in ay arrinta Greenland isku fara saaraan iyadoo ay meel u joogto arrinta Ruushka oo lagu khaldamay dhaqaale ahaan shidaalkii raqiiska ahaa iyo gaaskii oo xirmay inkastoo la leeyahay wararka qaar oo aan xaqiiqadoodu haynin waddanka Jarmalka markuu arkay xaaladdu siday u xun tahay shirkado badan ay xirmeen in uu weli helo xaddi ka mid ah gaaska waddanka Ruushka oo soo mara wadamo badan oo bariga Yurub ah
haddii intaa yartahay istaagto waddanka Yurub ugu horeeya xaaladiisu ay aad u kharimayso waddanka Jarmalka waxaa muuqda oo dhan calaamado fiican maaha wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka wadamada reer galbeedka oo Mareykanku ugu horeeyo waxa ay ku socdeen kuna dhaqmayeen qaniimaysi aad u fara badan ee adduunyada saddexaad waxa lagu sheego kheyraadkoodii wuxuu daldalanayay gaaska iyo saliidana waxa ay ahayd waxaanan xataa lacag badan joogin hadda laakiin waxa muuqata in dadkii oo dhan ay baraarugeen dagaalka haddii cagaha la geliyo cid walba ayaa heli karta sida hadalka loo dhigay qoriga la yiraahdo AK47 adduunkana maaha adduunkii 1945 waxaa adduun cusub xaaladiisa isbedeshay tirada dadka ee wadamada Yurub ayaa aad uga deeriyay waxa leeyahay caruur ma dhalaan khayraadkii faraha badnaa iyo shaqadii faraha badnaa ee dadka ajnabiga ka shaqeyn jireen haddii dagaal dhaco waxa laga yaabaa dadkaas inay ka baxaan wadamadaasi dhaqaalahooda inuu afka goosto waxa dhacaba Mareykanka iyo Yurub waxa la leeyahay qaabka hadda uu Mareykanku u dhaqmayo Yurub ayaa afka gacanta ku haysata oo ama kaag la yaaban Trump marka la fiiriyo gudihiisa iyo waxa ku xeendaaban ka tirsan gurihiisa dawladda waxa la leeyahay waxa weeye isha ay ka fiirsanayaan waxa uu madaxweynaha sameynayo laakiin Congress-ka iyo waxa ay wadaan qaraaradan faraha badan oo soo saarayo iyo ballamadan faraha badan la uu qaadayo in la weydiinayo sidee qorshayaashan ku meel marinaysaa waa inaad keentaa awoodii ay lahaayeen Congress-ka in wadanka ay dagaal gelin karaan nabadna qaadan karaan inuu asaga muraarsado looma ogola xaaladda dhinac walba marka laga fiiriyo adduunku way cakiran tahay Mareykankana hadda waxa u muuqdaa madaxweynihiisa in uu yahay nin aan cid xakameynaysa jirin waagas Iiraan marka gudaheeda aan eegno banaanbax baa socda kala qaybsanaan lagu tilmaamayo dhibaato dhaqaalaha jirta iyadoo laftigeeda marka ma ka bixi kartaa dagaal haddii iskugu tagaan Israa'iil iyo Mareykanka warar waxaa jira aan si baahsan loo kor loogu sheegayn wadamadii BRICS ku wada jiray ee aasay oo hadda waxa ay bilaabeen in ay lacagtii doolarka ka wareegayaan lacag lagu qiyaasay trillion dollar ayaa wixii ka dambeeyay markii xukuumadda Venezuela madaxweynaheeda la afduubay ayaa doolarkaasi oo dhan waxaa ka baxay wadamadii gacanta ku haystay wadamo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika Brazil Iran ayaa waxa ay xireen xiriirkii ay lahaayeen lacagaha adduunka iyo kala bedelashadiisa waxay u bedesheen nidaam loo bixiyay SIPS oo BRICS ay leedahay oo wax lagu kala gadanayo lacagta yamanka oo u taagan lacag dahaba isbedelkaas socda aawadii ayaa waxa uu keenayaa dhaqaaq fara badan inuu ka socdo xagga maaliyadda Mareykanku waxa leeyahay suuqiisa saamiyada waa leeqleeqanaya oo waxa laga yaabaa haddii wax yar oo colaad ay dhacaan in suuqa saamiyada ee wadanka Mareykanka uu burburo bangiyada dhaxo dhan ayaa waxay iibsanayaan baa leeyahay dahab ay rabaan inay sameeyaan waxa afka dhaqaalaha lagu yiraahdo hedging si ay isaga daariyaan dhaqaale xumada ba'an ee soo socota dahabka ayaa laga yaabaa sicirkiisa waa sida hadalka loo dhigay inuu gaaro wasladii am ounce waa 28 gram inuu gaaro $5,000 hadda 4,200 ayuu maraya waxaadna moodaa in wadamo badan ay isku dayayaan in ay iibsadaan dahabka waxaana muuqata dhaqaalaha adduunka in loo yaabo awalba iyadoo sicir barar jiray waxaa kaloo ayadana aan meesha ka maqnayn magaalada Odessa xeebaheeda laga soo rari jiray qamadiga in dagaal ba'an uu ka socdo oo laga yaabo inay Ruushka u dhacdo oo qamadiga wada ogtahay Ruushka iyo Ukraine ayaa ugu badnaa ayadana waxa la leeyahay khalkhal ayaa ka jira adduunkii oo dhan waxa ay noqotay baa leeyahay meel aan la saadaalin karaynin oo rag badan oo ka mid ah dadka la fagura siyaasadda caalamka iyo siyaasadda juqraafiyaadka ayaa waxay leeyihiin wax aan sheegno af iyo amankaag ayaa qof walba taagan yahay wax la saadaalin karo ma jirto adduunka oo dhan colaad ayaa sarag leh waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka caawa daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino
haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo